أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Naciima, halka aad iga daawanaysaan waa channelkeeni dhaqaaq aad dhaxashide maalmo cusub muuqaal cusub dhamaan asxaabtayda walaalaha channelka dhaqaaq aad dhaxashide aad iyo aad idin salaama soo dhawaad walaalaha cusub barsho wanaagsan walaalihii hore ila jooga dhamaantiin waa mahadsantihiin jazakumullahu khayran insha Allah aad iyo aad waxa idinka mahad celinaa sida quruxda badan wanaaga badan alla ka cabsiga leh waqti walba ay gudaawanayseen igula socotiin commentida ay soo qoraysiin waa idinka mahad celinaa subhanallah waqti walba waa idin ducooyaa ilaahay insha Allah kuwii jannada ku kulma Allah naga dhigo shaqadeedana way ka horeysaa kuwii shaqaystay ilaahay naga dhigo macnaha dheedheen lagu ma galaayo aaday muxuu ahay shaqo xoogan ugu baahantahay insha Allah isoo ducooyno meel kasto aan joogno like-ta ii saara insha Allah u share gareey walaalaha kaleento si qurux badan si aan meesha ugu walaalowno commentiyadana mar walba sidii quruxda badneed sidii kasii wanaagsaneed insha Allah aan ku ballanay qof kasto aan soo qaato muuqaalada aan macnaha soo gelinayo reaction aan ka bixinayo waxaan isku ognahay ducada dardaaran oo macnaha qof aan ku xadgudbayno ma jirto biidnillaahi alkariim haddii hore subscribe-ka igu saarinne ibaro kooga horo yani dhowr muuqaal iga daawo markaas kadib waa tuma Naciima markaad baratid ii saar insha Allah sidaa title kusoo aragteen maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo muxuu ahaa ninkan Soomaaliyeed waxa waaye markii igu horeysay oo aan arka ma aha oo dhowr maro hore waan arkay mar anoo muxuu ahaa fasax ku jiraan arkay oo muuqaal aan soo duubaynin si un macnaha markasto يعني oo asiga waxaan wax lamid uu sameeyo anigana YouTube aad uga mashquulsana oo ka maqnaa marka alxamdulillah fursad waxaan u helay eedoo ila soo wadaagon arkay iyo muuqaal soo duubay marka insha Allah intii iga aadan yaan rabaa inaan ka ilaahdo ilaahay yaraaho oo macnaha hore uga soo hadlin muuqaal inaan soo fadhiistay Captain Ayuba ninka muxuu ahaa la yaraaha ninkaas rabaa xogaa inaan ka hadlo nin aad uga caan baxay macnaha caayda diinta caayda qabiilada subhanallah isleedahay ninkan macnaha adduunyada korkeeda wax inuu uga shaqeysto aakhiradiisa oo loo keenay ma jirto miya waa nin aad u caaytamo waa nin aad umada uga xadgudbo waa nin macnaha waxa uu sameeynaayo haddana adduunka waxa waaye waxyaabaha qaarkood marka culimada ay tafsiirka iyo macnaha ahadiista iyo kitaabada aan raacanin la baray waxa ugu weynaay nalaga waanin jiray waxa ugu xun qofka oo ugu nacas badan adduunka korkiisa saaran waxay tahay macnaha qof aakhiradiisii u gadanayo adduunyo qof kaleento uu ku noolaanayo marka waa wax xun subhanallah intaadii ilowid xataa oo qof kaleento manaaficaad iyo adduunyo iyo wax uu ku dhex noolaan lahaa aadi aakhiradaadii u gadanaysid nacasnimada ugu weyn waa taas iska jira yaan kusoo kornay culimadana bareen alxamdulillah iyo waalidkiina dhalay marka ninkan subhanallah waxa waaye Captain Ayuba la yiraahdo intaana barnaamijka macnaha muuqaalkan asigu maanta oo mawduuciisa uu yahay intaana gudagalina xara muuqaalkii shalay inaan yar gadaal ugu noqdo waa ku mahadsantihiin commentiyadiina quruxda badnaa waan wada akhristay hal comment oo macnaha inaan sax u baahanaa jiro qof walaalaha macnaha dadkii ugu xiran aadka u wanaagsan ya comment uu soo qoray waxa kamid ahaa macnaha qaybtiisa hore Naciimo muxuu ahaa walaala ilaahay hana asturay waxaas muxuu markii dambana arintana beesha macnaha jareer iyo jilic ma taale arinka meeshaas ha u leexin macnaha arinkii shalay aan ka soo hadlay waxa aan ka hadlayo dhan waaqic waaye aniga runtaan ku dhex noolahay xaq aan ku dhex noolahay waaqica iyo dhab ahaanshahan ku dhex noolahay oo qayaali kuma nooli oo waxaan necbanahay qofka inuu wax uu arkaayo uu iska indha tiro maanta Soomaali adduunka laga aqoonsan yahay iska dhaaf muxuu ahaa ayaga dhexdooda waa ayagana inay waaqica rasmiga ay bartaan oo ogaadaan oo dhagaha loogu celceliyaa dad isgumeystay dad is adoonsado dad is dhibaateeyo dad isku xadgudbo dad is boobo dad is dhaco dad is dulmiyo inay yihiin adduunkii ka diiwaan galsantahay oo qof kastoo soo cararo maanta qurbo joogta wuxuu ku soo cararay walaalkay ay bursanooyo macnaha walaalkay ay bursanooyo galaashaada igili walaalkay ay bursanooyo shab ma loo imaaday dadka maanta qurbaha qaxootiga ku ah ee caruurta laga aruursanayo shab ma ku imaadeen iyo inay Yurub jecel dad ku yimid way jiraan aday markaas ayaga ay kaskooda iskiga imaadeen iyo dad oo xataa goboladii ay u dhasheen ku noolaan karo ku xaragoon karo oo maxanaha sidayna ugu noolaan karo oo qurbaha ayaga si kas iyo maaq u rabo
ويجران لكن مركي لغا سو قادو ددك انيغا نعيمه iyo inta ila midka magaaladii aan ku dhalanay inaan ku xirgoon weyne ku dhaqmi weyne ku shaqaysan weyne taas aan ka soo tagnay gaajana uma soo tagin wax kale uma soo tagin amni darra uga soo tagnay in macnaha nagu dhibaateena wixii aan qabsanayni nala dhacaayo wixii aad business hod samaysatid suuq geysatid in laga dhacaayo marka waaqica dhabta ah in lagu dhex noolaado oo walaalayaal runta aan isu sheegno aad muhiim u tahay pointigu ugu weyn waxay tahay walaalaha beesha jareer weyne ما لا جمستة مثل ما جمستو ولا جمستة هذا يجي إسكت نعم سيان نلا ما جمستو وحيكونوا لهن قيالي حرية ضادية ما مقنتها مثل ما مقنا محريين بس حرمة مسكحيا جسميا عقليا أنكستعلوا بعض إياه هذا يجي أي إسليهين حراتهين حيكونوا لهن قيالي ومعناها واقعي ربط هاي كديريين ولا راح كله باشا محوها إن كل اسكو قبا معناها جلاء لا اسكو دحولمو جلاء markii laga buuxo dadka kale ta jilaacda la yiraahdo okay waxa sanan anaga ma garan jirin adinka ana barteen ma aqoonin oo waxa qabiil an garanayna markii qaarka aan iska dhihi jirnay kaasan ah anagoo isle qofkan adi saaxiibkaada ah ilma yar markii aan ahayn hore waa uga soo hadlay in badan waxaana barteen ilaa luuq qof walba inta meel kale uu sii gal dad aan garanayna ay hada jiro oo macnaha ها حسوستا markii igu horeysay aan soo dhoofo waxa isaga ka qaldanay xataa isku qaldi jiray macnaha qabiil hadda aan kala bartay isku qaldi jiray waxa amalay jiray inay isla dhasheen anaga dadkaas ahayn oo macnaha waalidkina dhalay alxamdulillah nagu korinin qabiil hebelo oo saaska si ma aqoon jirin dadka dariskii aan ku aqdalanay intii aan wax la baranay intaas aan naqaanay wayna nagu filnaa anaga nagu ku filnaan alxamdulillah xooggeena ku shaqaysanayeen danaheena qabsanayeen wax walba waysanayeen laakiin waaqic rasmiga ah oo dhabta ah in loo hadlo aad muhiim u tahay dadka jilaacda dadka ma dhibaateeyeen haa way dhibaateeyeen ayaga dhexdooda is dhibaateeyeen haa way is dhibaateeyeen laakiin dhibka ugu weyn u geysteen dadkan beesha jareer weyne u geysteen in dhabtaas waaqiciga oo rasmiga qofka goormuu ka baxaa dhibka uu ku sugan yahay markuu aqbalo qofka goormuu apologize bixiya oo yiraaha waxaan ilaahay macnaha waa ku gaf qofka goormuu toobad keeno ilaahay u toobad keeno markuu u qirsan yahay wixii uu ku gafay markuu qirsan yahay dulmigii uu geystay markuu qirsan yahay macnaha dadkii uu ku xadgudbay wixii uu boobay markaas toobadiisan ay aqbal noqonaysaa dadkii uu dambi ka galayna ay dhihi karaan marka idan wax liisu qarinaynin qof nicib ma jiro oo ani maanta asxaabtayda ugu badan jareeri jilac markii la isa soo agdhigo dadka ugu badan ee maanta aniga aan asxaab laahay dadka jilaacda ah معناها جرير وحاجة وبقولكي أفر شن ليش أي نقدان ولي أنا مركي أنسو كورين ما بالي هنقف معناها أصحاب هو جرير ما أقولي صاحب لما نقول إنه معناها سكولك مركي دقينا يني دتك أن صاحب طلعها ما أهين دت جرير وما أنت الحمد لله وادت يسور أدينا أنت أساسا أنا وكلام مقنن أنا زعلنا هاي وقت والباني سوعنو إسكور قبنا معناها وادت كي أصلا سوكرنا لكن ظلمي اللي يسوق جست إن لقى هذلو آذي مهم وطن تاس كم ترجمة معناها دت كان توجلعنا نعبها دت كان جريرتان سيدا هاي جريرت وحي أي كحيهنا دبعته هست إن ما شيئا ويقص بيني دت كان جلعه هو دت دبعته ومد قحيه معناها آد موريان ونقضوا دت دبعته حوالي دت كحلاشته وجريه دت كحلاشته وحول بقى إلهي كعر وذا السماء أو ما أنت وطن كاس أي سببته وذا معناها لو كلام قية أو هو يكست قربك وينس أو جم قنته معدودان وهذا لا ترين كرو أو تنجلع قف جرير ودت بركعي مجرد أي قال بركعي جريو هذي اللي قدعي معه هاي بيرو هذي اللي قدعي كم مكان دول مقاس هذا يا ودن كي وهالعويا وودن كي ودي باتيسين أو دتك خرب جوبت أي ودي باتيسين أو ودن كي دحدي سنة عوارت إياه روب لعنت إياه وحصلنا أي وجيران مركا واقعي ربطة مركي لقى حطلق أو يعني قفل بابا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وإلهي معناها هذا الكمكات لهيس مرقاتي أهاو قف عادي أهاو محكمة فدي أسكري أهاو مدحوينه أهاو أهل بارك فدي مال الله ماشي كشقين يسد وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة قفل أنت أسال قربة وإلهي معناها كتاب كسماوي إنه لا سودجي إنها إسكا آخر سنة إنه جورج نوجا جوجي أنت ضوء علماء الله وعدوا لي راه بقولت هني أفرت يقدجي ساس لو مسود دجين إن لو رقمه يعني لو عمل فلو آخرة أنا أنكو شقيسنا حكم كي الدستور كي أسكو حكم لين أسجى واي كتاب كاس مرجع قفك
قادو دد كوحيغو والدكاد ويا ولالك ويا زوجداد اي تاي زوجكاد ويا هادو امد كلا ديباتيناyo inaad yani sida cadaalad ilaahay raali ka yahay ku hadashid qasab waa marka jareer injilay arinta leexinin qofna ma dhihi karo waa loo leexinaa waa laga hadlaa waxa laga hadlooyay naceeb ma ahay waxa la isu sheegoya sida isku gadoob falay waa isku gadoob falay waa la isdhibaatay waa muxuu ahay waa loo kala badan yahay dadkan qowmiyadan ilaahay u abuuray ee jareer weyna la yiraahdo dad dhiban waay dad xur ahaan waa dad abiyuusan waay caalamkoo dhan laga yaqaan inaan carab dheer iyo carab yani gaaban aan ku hadalno xaq waajib oo ilaahayna saaro dadka laftirkooda tanjileecda ah oo muxuu ahay inta ilaahay garanayso in arrinkan ka qayliyaan dana ugu sugan oo macnaha wattaqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum qasir dibka walaalka uu sameey mooryaanka ah dhigcad ah muxuu ahay dadka dhacay jaahilka ah raali hadii aad ku noqotid arrintii macnaha aan ka soo hadlay daraado kala iimaanaysa oo macnaha nabi ilaahay saalix dadkii loo diray qomkiisii heer samuud aha hal qof naaqada qale yani hashi qale gacantay ka qaban kareen oo way celin kareen markuu qalay ayagana ay dhibaatadii ay u imaatay marka fitnada hadii laga cabsan waayo fitnada hadii laga joogsan waayo kii huri iyo kii aan hurinin cid ay gooni ay macnaha u raadsanaysa deys kan le huri ma jirto kaasi saatiisa aakhiriis wala kulma laakiin adduunkan ay adoo gacanta qaban kartid oo waxa arkay sidoo dambi ah isha ku reebtaa afka ku reebtaa sida xadiiska rasuulku qoray sallallahu alayhi wasallam quraanka uu baraayo wixii awoodaada ay tahay aad ku reebi kartid hadii aad reebi weysid oo ugu sii sacabtumaysid qofkii sameeyna garab aad ku siinaysid dambi weyn ku galaysaa waa inaad bari ka noqotaa soo ilaahay bari kaaga dhig hadhow hadii kaleento وعلى المياه سيدا نغا نقضي كنا سا نغا نقضي نينكي ناكتي فوري دباتداس او غيستي نينا ناكتي سي قلي كنا كان وخي او مد ديني بليهين maxay soo qalay fitna jirto taas ala ra imtixaankaas musiiba jirto ibtilaa jirto waxa soo dhana 10 u baahan oo 24 saac in laga hadlo oo ani markaan soo hadla idinkana inaad wanaaga iyo quruxda aad soo qortiin looga baahan yahay laakiin hawaan banaciim hadii ay dadkaas ka soo hadashay معناها حماني أبوريسا دجالي أبوريسا كري أبوريسا دجال كان أساس كدلنا كلاس عناد وحنا قنا إقرصو سهن يعني خافكوا حالي ما أنت مدة اللي تحتاجين هاي أكواي واقعي ربطة هي حقيقة هي رمت أكواي كل إحنا ولا واي تنصاص عتن مسي ساداليو أنا ما كرك عشان كثير يحن سادالي وأنا سجدا تي إلهي جنوا معناها لكن حبك ماشي أصبح كسر الظلم ده وانا لو شيء الا كتابك جامعه حكومه سمعنا قرانك يا دينته ان برنا احاديثته waxa ku qoran culimadana ayna bareen wadan muslim ah haday umadiisa isku gadoob falaayeen isdulminaayeen isdhibaataynaayeen halaaga wuu soo degdega ayaga dhexdooda la isku imtixaama dadka kala xumaana loo gelina ha isumu suu al adab macnaha adab xun ay adduunka dhexdiisa isku ay ku dhadhaminaayeen okay dadka banaankana ursa loo saara oo maanta airborada markii la maray inta kii maanta markii lagu raa oo Soomaali ay sheegtid iska dhafkii jugta fadhiya kii hatta ku maqlaayo meelaha fadhiya yaa sanka inuu dadka qabsado aala taagan cidi safartay way ogtahay hadii waaqica iyo dhabta iyo runta iyo waxan ay kaadleys meel kasto dibirdaabo musiibo wasaqnimo balaayo la qarinayo wax wanaagsan ma ah aniga maanta airborka aan cad markii aan ka dego gabadha ila socoto muxuu ahay beesh jareer weyn aan ahayn dadka kale inta u dhalatay ajraaca ani iyada saaxiibana marka isla dhaafna aan ka degno airport ayada way gudbaysaa ani waa la ijoojina lacaga liiga qaada xuraan ma dhigi kara wadanka aan u dhashay ma dhigi kara meesha aan ku dhashay ma dhigi kara ma dhigi kari marka isla soo dhaafno airportada kale aan marayno isku sii marayna ha marka qofka soo dhaafay xurnimada waxa lagu dareemayaa banaanka kan ku dhax jiro ee timakadoodka ah dhibo ku qaba marka waaqici waay dhab oo in laga hadla rabo xumaan iyo dagaal kale iyo muxuu ahaa cudad qofka loo qabo ma jirto boqolka qofooda isoo wacaayo dadii la dhashay walaalahayga oo tinjileec waa ehelana qaraabana asxaabana xumaato ma qabo laakiin ka mooryaanka ah iyada la dhashay ee dadka dhibaateynay kaas waa ka aniga aan tooshka ku ifinayo oo aan dhahayo ilaahay ka cabso wali waa u gargaarooyaa waxa dhahoyaa aakhir intaan tagin adduunka wixii aqal doonan iyo wixii aad dhacday waa celin kartaa waa nasixi kartaa toobadu way furunta ku dadaal intaas waxaan dhahooyo midaan oo muxuu ahaa in ama dab abuure ama dagaal abuuraysa waxaan sahanka iyo saadaash aan ururinayo
iyo indheer garadnimada aan wax ku arkaayo midda laas caanood waxay noqonaysaa ay qarso biyay noqonaysaa volcano ka dalaacayso muxuu ahaa maanta koonfurta volcano ka dalaacayso oo waliba Hirshabeelle ay ugu horeyso sababtoo ah caburisaa jiro dhibaateena jirto qof maanta aan dareenkiisii iyo dadnimadiisii iyo xurriyadiisii iyo wixiisii oo dhan hiblas iyo dhulka la gelinayo uu qarxa war dhagaxa cirka ka soo daata maxaa noo dhiman taasaa bilaabanayso marka waa wada sugaynaa taas oo inta sugaysaan kamid ahay haddii isbedel iyo in dadkii equal ay yihiin aan la ogolaan Naciima asdaji Naciima xisho Naciima kan Naciima maxay ku xishootaa equal markay dadka yihiin oo sidoo Ilaahay u abuuray loo wada yahay wixii aqoon oo ka dheerahay igu sharaf waa kaaga dheerahay waan ka hor orday waxa iga hor orday iga dheeraysid waa kugu sharfa waxaan ku leeyahay qofkan walaalkayga way iga aqoon badan yahay walaashaydan way iga aqoon badan tahay hadii meel aan ku kulno wada shaqeynayno shaqadaas iyo xidigahaas iyo shahaadadaas ay dheer tahay waa kugu ixtiraam waxaan leeyahay ay soo waa iga sareysaa markaan ka sareeyo oo aniga aqoonta iyo diinta iyo meeshii aan u cararay wili ay saantaada soo gaarin waa inay igu ixtiraamtaa wax kaleento oo farqi oo lagu kala sareeyo ma jirto intii la aaminsan yahay marka oo qofka kaleento uu dhahayo ana inta ka xig ana inta ka xig ana inta ka xig dadax soo baranina maanta madaxtooyada dhexdeeda shaaxiskiga cabaa iska fadhiyo dadkii wax soo barto banaanka fadhiyin looma ogolo ay boorada markay ka dagayin lacag laga qaada ay hada xurriya ma aha marka insha Allah in runta laga hadlo waaqiciga iyo dhabta taala laga hadlo diinta ku salaysan xaqiiqda la dul istaago ayay qasab u tahay qofkiina caayana wuu nici karaa qofkii macnaha jeclaysanaan wuu jeclaysan karaa intii xaqa iyo alka cabsiga taqaano arrinkan uu ku raaxaysana intaan aqoonin qasab lagu fahansiina maanta qof caaytamaayo markaan soo noqon muuqaalkan ninka uu qaabilsan yahay ninkan 24 saac diintu caaya cid macnaha ka hadasho laba qofood saddex qofood yani YouTube ka soo gasho walaalo ilaahay ka cabso waaridoodu waa waxay santa ala yiraaha badankood waxay ilaahin libaaxa tahay guuleystaa tahay guul dhalaa tahay hore u soco waa nin diinta caayna muxuu ahaa qabiilkii uu ka dhashay iyo dadkii markaas asiga yani diin la'aanta laha noocaas oo kaleento adduunkooda ku iibsanayay aaqiradooda way ugu sacabtumayeen waxay leeyihiin aada u wanaagsanta qofkii ka soo hadlay waxa la dhahaa maxaa ka hadleen ninkaas nin oo seef labood ah nin seef haysta waa nin oo mujaahid ah nin oo turkiis u dagaalamayo waa halkaasay maraysaa arrin aan shalay aan ka hadlaayay la mid tahay channelka kale aan ku duubo oo ayad macna qofka markuu yiraa yaa ilaahay yaqaano yaa ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu qayliyo kaalmo dadka uu warsado ayadoo dhalinyarada dadka ay dilaayeen ay mooryaantii ay ku dhacayeen maalkaada dhacayeen waa lagu fiirsanaa muqdisho taas soo joogay dadka meelay taagayeen ku fiirsanay ku daawanayeen markay ka tagaan oo dhahan muxuu ka qaatay intii aad qaylinayso yaa ummadda nabi maxamed yaa ilaahay yaqaan adeey sallallahu alayhi wasallam waa lagu dhaafay hadaba waxa muxuu ahay qof kale uu qaylina muxuu dhahaa yaa ina hebel inta loo soo baxo qofkii laga dhicina dad diintii ay uga saramartay qabiilkii yaa Soomaaliya muxuu ahay ay noqotay maanta ma dhihi kara boqolkiiba muslimaan islaamana qofka islaamka man salima waa qofka laga nabad galo afkiisa iyo diisa afkii iyadiyo laga nabad galeynina maalkii dadoo loo sii dhacay marka dhibaato waa ninkaan oo kale inta hadda nin weyn waaye jahli oo dilooday qulubtiisa ay qaasiyo noqotay macnaha ay qalashay wixii xukun uu ninkaan leeyahay culimada ka hadlayso laakiin inta ani hadda aan ka hadlaaya waxay tahay wuxuu leeyahay bal waa idin maqalsiina subhanallah waad yaabaysiin cidii hore u dhageysatayna ayada markaas arki doonto wuxuu leeyahay waa gaadhay konton guri halkaasay isku yimaadeen ninkaasi afarta gaari maxaa ku aaguraysan 600 oo gaari laagdi jir reer mahad leeyihiin oo reer mahadna Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ka ballamay wax ilaahay naga ballamay kama duwan wax hadda aad mudug joogtay waxa Cabdullaahi Yuusuf ka ballamay waa si diinta kale loo ilaaliya si diinta kale Cabdullaahi qiimaha mudug ku leeyahay marka konton gaari reer mahad leeyihiin waa laag hadla markii koobaad ma ahan oo loo sacabtuma dad badan daawada muuqaalka hadda aan fiirinayo channelkiisa waa yani meel kale kama fiirinooyo waqtigaas xaadirka ee muuqaalka aan soo duubayo 87,000 oo qofood yaa fiirsatay macnaha oo suulkane 4.3 macnaha 4,300 yaa kor u taagtay oo leh ilaahay yani Cabdullaahi Yuusuf iyo muxuu ahaayay wuxuu yiri ilaahay hadalkiisa isku fac waayo leeyahay ninkan hadalkiisa aad u clear u yahay dadka daawada marka waa dad qalbigii laga ooday indhihii laga ooday dhagihii laga ooday
waxaasoo dhan aanan fahmayn ee uu cad yahay ninkan qabiilada uu caynaayo iyo qabiilka uu ammaanayo bes subxaanallah ilaahay yaa diinta iyo iimaanka saasna looga siinin ilaahayow ya subxaanallah walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun oo ilaahay macnaha soo geeriyoonina idinkoo macnaha muslimiin ahayn oo waxa waaye waxa idinka soo horeeya usoo socotiin ma jirtay micnaheeda ay ka dhigan tahay ninkaas hadalka uu dhahayo waa maqasheen wuxuu leeyahay sida macnaha cabdullaahi yuusuf hadalkiisa loo ilaaliyo marxuumkii macnaha geeriyooday madaxweynihii hore soomaaliya uu ka hadlaa wuxuu leeyahay mudug haddii aad tagtid ninkaas hadalkiisa sida loo ilaaliyo macnaha sida kalaamka ilaahay loo ilaalinayo kol subxaan allah wanacuudu billah yacni qof bashar asi lamid ah geeriyooday oo maanta isaga wax uga sii baahan iyo wuxuu la masalaa ku aakhira weynaa ilaahaygi abuuray akoonka keenay macnaha nin saxaroonaayo waxeesmanaayo bini aadan ilaahay abuuray uu ogyahay yuu allihii abuuray koonkan keenay yuu la miisaan dhigay qofkaasoo kale maxaa laga sugaa cid kasta meeshaan kasoo hadlaysa mooryaan dhiig cab jaahil geel raace wax walbo marka dadkii daawanaya hadday macnaha shahaadooyinka adduunka uga sarreey ay haystaan xataa indhahay kala yihiin maxaa yeelay diintii ma aaminsaneen qabiilkay aaminsan yihiin sidaas daraaddeed ugu sacabtumayiin qofkan yacni maanta waxaa la maroyaa qof 35 sano wax baranayay 40 sano jiro ama 50 sano jiro ee jaamacadda macnaha ugu qaalisan adduunka ka baxay waqti geliyay qofkaas magaciisa laa yaqra walaa yaktub waxna aan qorayn waxna aan aqrinin waxa uu sheegay ay uga weyn yihiin wixii uu soo bartay ay uga weyn yihiin diinta islaamka ku abtirsanaya ay uga weyn yahay ilaahayga abuuray akoonka keenay Soomaali maanta dad noocaas yaa boqolkiiba qiyaas lahayn inta maanta lagu qiyaasi karo ee noocaas marka waa ummad jahli uu dilooday haddii runta laga hadlana macnaha runtii ay dhibayso aniga marka halkan waxa ugu imaanaysaa insha Allah sababta u dhahay waaye marka ibaratid kadib subscribe-ka ii saar haddii aad ku qaracmi lahayd halkan xaqiiqda dhabta subxaanallah xaqa ilaahay raali uu ka yahay wax walbo wanaag ah adduunyo aakhira aan ku badbaadayno yaan ku heynaa qofkii marka adduunyadii raacay oo aakhiradiisa aan arkaynin wuu dhibaa halkan wuxuu ka qaadaa allergic iyo cuncun iyo muxuu ahaay iyo xanuun sababtoo waxaan kula dagaalamoynaa shaydaan waxaan oo dhan shaydaan wato nin subxaanallah diintii gadaal marsaday ee duunyadiisii iyo muxuu ahaay hortiisa soo dhigay waa nin caadeystay waqti walba waxaan sameeyaa waxaase kasii nacsan kasii aqli xun kasii aakhira beelnimo badan cidda daawanaysa aan dhehaynin waxaan haddii qofkaan ilaahay ka cabsa aan iri ataa uu ka cabsanaynin maalin kasta sidaan uu ilaahay ugu gafaayo maalin dhawood kacbadii garow ku sheegay maalin kale saasoo kaleento maa cadadna walaa xisaaban inta mar macnaha uu diinta u gafaayo haddana loogu sacabtumaayo la dhahaayo horu u soco adaa waxaa ah nin muxuu ahaay maasha allah generaalaate hebelaate generaal waa la shaqaystaa generaal aqoon maadina way u baahan tahay laazim diinna waa inuu laado generaal aan diin lahayn saxarada sida lasaga dhaqabo ma garanayo kadibna muxuu ahaay weysadiisina ma garanayo dhibaataa ka imaanaysa oo hadhow afkiisiyo calyalahoo wasaq lahoo qashin iyo qurun uu kusoo cuno ilaahaygii abuuray afka uu kula galaa ilaahay adiga iyo nuuc lamidba afka lama geli kartid dad ku yeeleelaya aragtay marka insha Allah muuqaalkan waxaan ugu talagalay intaas inaan kusoo gabagabeeyo aan iraaho wax magaratada waqti walbo ilaahay macnaha u gafayso u gafaay rasuulka u gafaay kacbada subhanallah rasuulka u gaf kacbadii u gaf ilaahay u gaf rasuulka ku soo celi hadana waa la sii daawanaa ninkaan oo kale isla markaas wuxuu ahaa in wax laga bixiyo intaas aan u talagalay muuqaalkan inaan kusoo gabagabeeyo hadduu ilaahay iraaho khayr caafimaad dhammaan asxaabta walaalaha channelka dhaqaaq aad dhacashide aada idin salaama qof walbo is dhowr aakhiradaada ilaasho sababtoo kaligaa ayaa qabri lagu dhigaa su-aalaha lagu warsanaa qiyaamahan lagu soo istaajin doonaa waxaa ugu xun marka oo ugu yacni dhib badan adoo adduunyadani isaan isku xiijinaysidoo isdhibaataynaysidoo cid dhibaato kale dad u geysanaysa garab u ah qofkaas wax dhacayna adiga macnaa wixii uu soo dhacay xataa ay kusoo galaynin dhibaatada jirto dhiig dadow galaaya aa u hiilinaysid hadhowna aakhiradaada aa ku weynaysid qabrigan ciriiri hadhow iyo diiqad iyo dhibaato aad ugu noolaanaysid insha Allah diyaar garow aad u xoogan adduunyada waxaan loo keenay in aan shaqaysano aakhiradeena aan u shaqaysano haddii ka waran meel markaas dhimasho ay jirin laga soo noqonaynin aadan dhihi karin ahli badbaadiyo geeridaada ay imaatay waqti lagu imaanayo ma ogid laakiin adoo qofkaan oo kale taageersano ka daba qaylinaysid oo ka daba xiiqaysid geerida hadday kugu imaato ilaahay cirib sanaa laga tuugaa ilaahay dhammaanteen insha Allah hanoo dambi dhaafo khayr caafimaad in salaama xukunka ninkaan culimada iska leh laakiin inta aan uga jeedo mufsid inuu yahay aniga aan u jeedaa oo ummadda inuu fasaadiyo
halkaas uu soo fadhiisto dad badanna ay ugu sacabtumayeen raalina ay uga yihiin asaga kaligiis arrintaas ma noqonayo qof kastoo daawado u sacabtumo u qoslo taageero ama mid caadi u muujiyo ama mid niyo u muujiyo wax xeerta ha noqoto kumid uu noqonaa qofka kula dhashay ehelkaada ah hadduu ilaahay u gafaayo waxa isku tihiin ma jirto nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ciduu kasoo hijrooday ilmaadeertiisii adeeradiisay ahaayeen maadan adiga ummadda nabi maxamed ahaanood sunnadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam aadan ku dhaqmayn hee subxaan allah warle maala wadaa intaas iyo nabadgelyo waa halku dhigeennii iyo ku noolow nolosha aad doonaysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu